kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kusoo dhawaada mid kamid ah casharadani barashada Soomaaliga. Casharkeenana maanta waxaynu ku eegi doonaa barashada shaqalada. Haddaba casharkeenana maanta waxaynu si gaar ah ugu eegi doonaa barashada shaqalada iyo qaybahooda. Waxaan idin leenahay dhammaantiinba daawasho wacan oo wanaagsan. Haddaba sideen horeba soo sheegnay, casharkeena maanta waxaynu ku eegi doonaa shaqalada iyo barashadooda. Haddaba markaasi shaqalada waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood. Labada qaybood oo kala ah shaqal gaaban iyo markaasi shaqal dheer. Tusaale, waa maxay shaqal gaaban ama shaqalka gaabani muxuu yahay? Shaqalka gaaban waxaa ka mid ah shaqalada ay ka midka yihiin sida a, e, i, o, u. Markuu shaqalku yar yahay ama uu farta yaryar lagu qorayo, waxaad isagana u qoraysaa sida a, e, i, o, u. Waa maxay shaqalka dheer? Shaqalka dheer isagana markaasi waxaa ka mid ah shaqalada ay ka midka yihiin sida a, e, i, o, u. Markuu yar yahay waxaad qori kartaa a, e, i, o, u. Haddaba bal halkan waxaynu ku eegi doonaa shaqalka gaaban iyo markaasi tusaalayaashiisa. A, e, i, o, u. Markuu yar yahay, shaqaladu ay yar yihiin, waxaad u qori kartaa sida a, e, i, o, u. Tusaale, a, aqal, e, edo, i, il ama indho, labadaba odhan karta. O, olol, markaa dabka la shido ololka ka baxa. U, ul. haddii aan soo qaadano tusaalayaal kasii badan intii horeen aragnay, a waxaad odhan kartaa af, e, eber, i, ib, o, orki, o, ubax. Waxaan filayaa inaan soo gaadhnay dhammaadkii casharkeena. Haddaba inta aynu ku kulmi doono cashar noocan oo kale ah, waxaan idinkaga teginaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo. haddii aad ka heshay casharkan oo aad rabto cashar ka sii badan, noogu reeb fariintaada qaybta comment-ka. balanteenu waa inaad subscribe garayso channelkeena. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.